halkan waxaan kaga hadlayaa arrin yar oo ay saxaafaddu maalmahaba qoraysay oo ku saabsan golaha guurtida arrintaasoo aad loo qaada dhigay waxa weeyaan waxa la yidhi xildhibaano golaha guurtida ka mid ah ayaa waxay keeneen mooshin ay ku ridayaan Saleebaan gudoomiyaha golaha guurtida ay ku ridayaan bay keeneen arrintaasi miidiyaha iyo gobolladaba saani bay u gashay Soomaalida waxay ku maahmaahdaa beentu lug kaliya leedo lugta marka la qabto way jabtaa annaku haddaanu golihiinahay waxa la yidhi waliba qolo gaar ah oo habara wala yiraahdo ayaa Saleebaan meeshii ka qaadayso mooshinkeedu gridaysa arrintaasi waxaanu saxaafadda iyo Somaliland iyo cid kasta oo Somaliland danaysaba u sheegaynaa inaan arrintaa wax ka jirin mooshinna aanan keenin Saleebaan aanan mooshin ku ridayno u keenin mooshinna aanan qorinba oo goluhu mooshinba qorin goluhu wuxuu sameeyay aan idin faahfaahiyo waxa intaas laga soo dhex saaray goluhu wuxuu sameeyay guddiga joogtada baa ajandii waxay ku soo dartay in xeroosaadka wax laga bedelo xeroosaadka in wax laga bedelo golaha arintaasaanu annagu ka doodnay mooshinimay ahayn waxaanu kaga doodnay golaha dhexdiisa in wax laga bedelo arintoodii baanu yara qaadnay oo aanu nidhi mooshinka taana xaq baanu u leenahay inaanu haddaanu golaha nahay ajandaha ama golaha hagaajintiisa ama golaha wixii naga khaldan ee aanu hagaajisano xaq baanu u leenahay taasay ahayd tiiba waxa laga dhigay inaanu Saleebaan mooshin ku keenay oo aanu ku ridayno oo ay meel walba ku qoran tahay oo waliba habara wal ridayso arrintaa wax ka jira ma jiraan waxaanu ridaynaa ma jirto wixii golaha iyaga aanu tabanayna aanu surgudoonkayga kala tabanaynana waa hawl annaga noo taala oo aanu isaga u sheegayno laakiin waxaanu saxaafadda marinay iyo waxaanu mooshin ku keenay midna ma jiro oo aanu ku ridayno Saleebaan intaasi ka bacdina xildhibaanka waxaan wax ka weydiiyay bilowga jira khilaaf u dhaxeeyay isaga iyo gudoomiyaha golaha guurtida iyana wax tabanayaan waxaanu kaga jawaabay aniga Saleebaan wax khilaaf oo naga dhaxeeya oo aniga gaar ii ah ama naga dhaxeeya oo aanu isku haynaa oo aanu isku qabsanay ma jiro hadduu khilaaf jiro oo labada khilaaf noo dhaxeeyo deedma dhaxeen ma jiraba waan cadeyn lahay illa ciidin waxba yeelmaysay laakiin xildhibaan ma jirin xildhibaano kale oo iyagu hankooda ku jireen golaha ay hogaamiyaan kuwa maxay uga hortaagantay haday taas dhacdo horta goluhu shirgudoonka de marka hore iyaga doortay laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay nin waliba maskaxdiisa aydiisa iyo de mowqifkiisa saasta ma jirin xildhibaano kale oo iyagu hankooda ku jireen golaha ay hogaamiyaan kuwa maxay uga hortaagantay haday taas dhacdo horta goluhu shirgudoonka de marka hore iyaga doortay laakiin anigu hadda waxaan ka hadlayaa waxa miidiyaha lagu sheegay nin waliba maskaxdiisa aydiisa iyo de mowqifkiisa saasta waxa weeyaan golaha waxa lagu sheegay inaan mooshin keenay waliba calaamad baan annagana la calaamadiyay mooshin ma keenin xildhibaankuna waa xorde midaan anigu fikirkiisa haystaan ma jiro